xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa xariga looga jariyay dhismo cusub ay madasha isku tashiga iyo horumarinta ragga community ay ku kordhisay dugsiga Suldaan Muuse ee deegaanka Duudhooyo. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta deegaanka, maamulka degmada Rakaraaxo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool deegaanka Duudhooyo. ugu horeyn maamulaha dugsiga Suldaan Muuse oo daafuray xafladda ayaa faahfaahin ka bixiyay nooca dhisme ee dugsiga lagu kordhiyay. waxaana sidoo kale uga mahadceliyay madasha ragga community dhismaha ay ku dareen dugsiga oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanku. maamulaha ayaa sidoo kale ka codsaday wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland inay qalabayso fasalada lagu kordhiyay dugsiga. muhiimadda ugu weyn waxa weeye balnan ragga community adeegyadii ay noo dhistay way ka mid yihiin iskuulkan deyrkan 200 oo quruxda badan iyo labadan qol ee galabta halkan inoo ka muuqda sidii aan xariga uga jari lahayn. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ragga community. haddii aan nahay bahda iskuulka runtii waxa weeye adeeg iskuulka ka dhinnaa oo la tabayay oo muddo aan cabashadooda wasaarado iyo dawladda u gudbinay ayay iyagu si fudud waxa weeye barnaamijka u xaliyeen. intii waxa weeye jeebkooda wax ka soo bixisay iyo intii taladeed lahaydba ilaahay karaameeyo. ragga community waxay qabatay dhismihii meesha waxa ka maqan qalabayntii waxaan ka sugayno waxa weeye wasaaradda waxbarashada Puntland. waxa weeye aad baan baaq galabtay ugu dirayaa wasaaradda waxbarashada Puntland heer gobol iyo heer waxa weeye caasimad. waxa iyagana waxa weeye baaqaas ma wasaaradda gaarsiinayna maadaama iskuulkii naloo dhisay insha Allah qalabayntii cidda aan ka sugayno wasaaradda waxbarashada Puntland waa idinka. ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka Duudhooyo, gudoomiyaha degmada Rakoyo Suldaan Maxamed Suldaan Muuse oo munaasabada soo afmeeray ayaa ku dheeraaday waxqabadyada baaxadda leh ee madasha ragga community ka fulisay gobolada Bari iyo Karkaar. waxayna dadweynaha deegaanka ugu baaqeen inay door lixaad la ka qaataan waxqabadyada madasha oo ay dadweynuhu si weyn ugu tanaadeen. dugsiga halkan ka muuqda ee labada fasal ah oo ay qabteen community ragga ay dhiseen iyo reer Duudhooyo hadda gacanta iyo farsamo maaragtay nidaamka kale to iyaguna aan ka marnayno iyo hantida kulliba. waxa ka maqan iskuulka oo ka dhiman waxa weeyaan waa qalabayntii wixii lagu fariisan lahaa baa ka dhiman oo maqan. waxa weeyaan kuraasidii lagu fariisan lahaa iyo miisas hadda waxaynu arki jirnay waxa keeni jiray wasaaradda waxbarashada Puntland. waxa ka sugaynaa iyagana qalabkii baan ka sugaynaa sideeda 200 oo mitir oo deyrka ah iyo labada fasal oo la dhisay. waxa lagu dhisay waa isku tashi weey, dad baa isku tashtay oo muruqooda isugu geeyay. ilaahay baan uga mahadcelinaynaa. iskuulkan Duudhooyo kaligiis lama dhisin ragga community iyo isku tashiga deegaanka degmada Rakaraaxo iyo qurba joogta deegaanka soo jeeda waxay dhiseen 7 iskuul oo degmada kamid ah. iskuulkan wuxuu yahay iskuulkii afraad oo xariga laga jaro. waa xariga laga soo jaray Uurjire, waxa laga soo jaray Qaarsoor, waa xariga laga soo jaray degmada Rako. galabtay kan waa kii afraad. aynoo haran inta ka bacay in ka wada jirnaan jecel insha Allah hadii ilaahay masbuucan gudihiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya dhammaan ururka ragga community oo isugu tagay inay dadkooda jahliga ka saaraan, jahliga kala diriraan, wanaag u horumariyaan. wax walba oo yimaada wuxuu ku yimaadaa wanaag. 2017 baynu bilownay isku tashigaan ragga community in la asaaso barnaamijkan iskuulada ah. ما شاء الله انت سنو قبصنا ولا بس سنو قدهود waxaan rabaa marka inaynu inta in ka sii badino arintan qiimaha badan oo daahfurka ama xarig jarka iskuulka waxa weeye waa arin qiimo badan weeye. waxbarashadu waa muhiim. iskuulku haday tahay deegaan iyo haday tahay ragga community shaqo weyn bay ka qabteen labaduba, laakiin ilaah baa sababeeyay ragga community ayaan mahad weyn u haynaa oo loo hayaa. iskuulaad badan sida odayaasha horeba u sheegeen, iskuulaad badan oo ama degmada ha ahaato ama deegaanada kala tuulooyinka ahaatee ayay wax ka qabteen. waana ugu ducaynaynaa insha Allah waxa ay sameeyeen oo sharafta leh oo qiimaha badan oo ay ku dadaalayaan. insha Allah dadaalkooda ilaahay ajar ha ka siiyo baan leenahay. Xuseen Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta dowladda Puntland, degmada Rakaraaxo.